Xalqadeena maanta waxay ku saabsan tahay waqtiga. Ninkan waxaa la dhahdaa Warsame. Warsame waxaa ku shaqayn jiray xamaanimada oo kolba wixii looga dalbay inuu qaado ayuu gaarigiisa u qaadi jiray oo uu geyn jiray meesha looga baahan yahay. Warsame waxa uu lahaa saaxiib ay wada shaqayn jireen. waad mahadsantahay. mahadsanid. Warsame marka uu lacagta qaato toos ayaa ugu tagi jiray maktabadda. assalaamu calaykum. وعليكم السلام. buugganaan maanta iibsaday. mid fiican baad dooratay sida maalin kastaba. lacagtana waan ku siiyey. waad mahadsan tahay. Markuu Warsame maktabadda ka soo noqdo, raashinka ayaa soo iibin jiray. Kadib marka uu guriga ku soo noqdo, cuntada ayaa u samayn jiray. guriga soo gala aabbo, waa xilligii cuntadee. هيا أبو. Warsame marka uu carruurta cashaysiiyo u seexin jiray. Kadibna markuu carruurta seexiyo, masaajidka ayaa u tagi jiray oo duruusta islaamiga kusoo dhigan jiray. Marka uu fursad shaqo sugayana, buuggii habeennimadii uu soo iibsaday ayaa uu akhristaa. Halka Warsame saaxiibkii marka uu lacagta helo, waxa uu tagaa makhaayadda. Kadibna waxa uu waqtigiisa oo dhan ku qaataa inuu la sheekaysto saaxiibooyin oo waqtiga ilaa saqbarka ay halka ku lumiyaan. Inta uu fursad shaqo sugayana, iska wara saaxiib, war cusub mad inoo haysaa. wallaahi maxaad saaxiib. horta lacagtaada iyo waqtigaaga maxaad ugu lumisay buugaagta. Warsame uma uu jawaabin sababtoo ah waxa uu xasuustay. إن رجلا قال للنبي أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب ومعناه tahay in ayaa nebi ku yidhi dardaar nebiga allow wuxuuna nebigu ku yidhi ha cadhoonin. Marka uu Warsame sidaa wareegtadii ku waday, waxa uu noqday daaci weyn adduunka oo dhan laga yaqaano oo dadka diinta islaamka ugu yeedha. Warsame saaxiibkii markii uu daciifay ee shaqadii xamaanimada u kari waayay, waxa uu bilaabay dawarsi. Markasta oo xasuusta noloshiisii hore iyo waqtiga lumin jiray, uu ka murugoodaa. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا